السلام عليكم dhalinyaro soo dhawaada waa macalin maxamuud cashkan waxaynu ku baran doonaa 10 eray oo aad muhiim u ah haatan sabuuradu waxay qaaday 7 saddexda kalena dib aynu kaga dari doonaa insha Allah okay eray koowaad waxaa loo akhriyaa shoal waa koox malaay ah yani a group of fish waxaa kaloo la yiraahdaa school of fish yes school of fish ama a bunch of keys or a pile of salt marka waxaa la yiraahdaa school of fish waa collective nouns okay marka shoal iyo school of fish ama shoal of fish hadaa dhahdid waa isku micno yes erayga labaad waa show jumping waxaa la yiraahdaa ciyaarta fardaha inta la tartansiiyo yani obstacles iyo xal dhaxorliga deedna faraska waxa uu ka boodaya way ordayaan oo way tartamayaan haddana wax la hordhigay way ka boodboodayaan yes waa ciyaar orod iyo jumping isku dhex jirta okay erayga saddexaad waa shriek waa qofkii inuu qayliyo scream iyadana waa qaylin waa isku micno ama shout ama screech intaasaan ku dhaafaya so shriek scream shout dhammaantood waa isku micno waa qaylo ereyga afraad sitcom yani erey hataa uma sii bicno badan ma ahan waa film yani tv waa hore laga soo deeni jiray oo iska funny ah it was a comedy show sitcom baa la yiraahdaa yes hadaad waa daawan kartaa skating waxaa la yiraahdaa ciyaarta skatingka yes yani ciyaarta skating af Soomaali waxaa lagu yiraahdaa tusaale kabaa la xirtaa kabo baabuud ah hoos waxay ku leeyihiin cago deedna way kula soo soconayaan haddii aadan aqoonin madaxayna ku istaagta halisa Nairobi aad baa lagu ciyaaraa yes skating rink marka waxaa la yiraahdaa meel ay dadka isugu yimaadaan ee ciyaartaas ku ciyaaraan inta badan ice ama baraf korkiisa yani dhulkii waa sibiq waa baraf kabaha baa xiranaysaa and then what could the skating rink ayaa la yiraahdaa this is where people come together and then they play skate on an ice yes snail balkan waa xayawaan badda laga helo af Soomaaligiis ma aqaano wabigana waa laga helaa waxaan jeclaan lahaa sawirkiisa inaad raadisid si aad fikrad guud uga heshid snail ayaa la yiraahdaa yes adigu waa un xayawaan erayga toddobaad waxaa la yiraahdaa snooker iyadana waa ciyaar miis korkiisa lagu ciyaaraa waxay u eg tahay ciyaartan poolka camal pool iyo snooker waa isku mid simply they are just the same different names pool waxa waa ciyaar yani miis korkiisa waxaa saaran kubado and then qofka ul buu haystaa dhowr qof ay ku ciyaari karaan ama laba qof ushaasa kubada lagu tuurayaa duleelo uu miiskaas leeyahay rabo in laga geliyo qofkii number weyn geliya ayaa guuleysta snooker haddii weli aadan fahmin sawirkeeda google ka raadi and then fikrad guud baad ka helaysaa because waxay dhahaan a picture is worth 1,000 words hal yani sawir wuxuu dhigmaa 1,000 eray samahayn yes good waa tirtirayaa saddexda eray oo kale aan ku daraynaa erayga sideedaad oo aynu cashkan ku baranayno waa somba waa gloomy yani markaad murugaysan tahay oo aadan farxad agtaada oolin ayaa la yiraahdaa somba yes his face seemed somber yani wajigiisa waji macbuus camal buu ahaa farxad ma oolin gloomy ayaa isku micno yihiin gloomy marka somber iyo gloomy waa isku micno opposite-keeda waxaa waaye cheerful waa qof markuu faraxsan yahay cheerful yes good erayga sagaalaad aynu cashkan ku baranayno waa sona is a noun yani waa noun waa qalab ama system loo isticmaalo markii alaab ama object laga raadinayo badda hoosteeda inta badan waxaa isticmaalo yani gujiska yes submarine erayga waa raadinaya submarine waxaa la yiraahdaa maraakiibta yani badda hoos quusa ee xagga hoose ku socdo af Soomaali waxaa la yiraahdaa gujis Soomaali hadaadan aqoonin nagu soo biiri kartaa 10 Soomaali waa qaadan kartaa okay so qalab ay isticmaalaan ayaa la yiraahdaa sonar yes so for example waxaa leedahay the submarine markabkii gujiska ahaa used sonar wuxuu isticmaalay qalabkaas maadaama uu wax raadinayo object waxaas yes erayga tobanaad ee ugu dambeeya cashkan ku baranayno waa sophisticated it's a very big word sophisticated waa wax complex ah yani wax aanan fududayn complex wax markay fudud yihiin waa simple ama easy samaha simple ama easy opposite-keedana marka waa sophisticated for example he gave a sophisticated answer he gave a very complex answer yes
qofka hadduu aqoon badan leeyahay oo maskaxdiisan aad ay advance u tahay ama wax badan u bilaaban yihiin iyadan laftirkeeda oo isticmaali kartaa sophisticated. For example, she is very sophisticated iyadoo